marka aad maqashid Soomaalida qurba joogta ee ku nool qaaradda Yurub waxaa markiiba niyadaada ku soo dhacaysa dad iyagu dalalkan ku yimid safarro waqti badan qaatay kaasoo isugu jira tahriib bad iyo bari naftoodana qatar badan soo galiyay iyo kuwa qaab isku keenida qoysaska kala maqan lagu keenay laakiin waxaa jira dad iyagu 30 sano ka hor qaab qaxootinimo ku soo galay Yurub safarkoodana uu qaatay wax ka yar 20 maalmood ciise cabdikariin maxamed waxa uu ka mid yahay Soomaalida 30 sano ka hor markii ay dagaalada sokeeye ka bilowdeen Soomaaliya soo gaaray qaaradda Yurub gaar ahaan dalka Norway mar aan wax ka weydiiyay safar uu ku yimid xilligaas dalka Norway ayuu iigu jawaabay haddaan ka jawaab su'aasha ah marka tan wadankan maxaa kala kulantay markaan wadankan imiday intaana iman ka hor waan maqli jiray Yurub iyo Norway waa maqli jiray oo dad badan ay soo horeeyaan maqli jiray laakiin qorshahaygu ma ahayn inaan Yurub soo aado qorshahaygu waxay ahayd dalkayga inaan wax ka barto la joogo laakiin dagaalada sokeeye ka bacdi ayay dantu ugu qasabtay inaan soo baxo aan u soo dhoofo wadanka Norway Soomaalida xilligaasi timid Yurub ayaan wax badan ka ogeyn waxa ka horeeyay ay kala kulmaan iyo heerka qabow ee ka jira Yurub ciise ayaana wax ka weydiiyay fahamka uu ka haystay halka uu u socday iyo dhibaatada uu kala kulmay xilligaasi Norway waxyaabahan kala kulmay waxa ugu horeysay meesha ugu horeysay ka soo caga bilaabay ama ka soo degtay waxay ahayd Norway magaaladan hadda aan joogo Bergen muddo qiyaastii hadda laga joogo 30 sano ku dhawaad ayaan magaaladan ma sha Allah Ilaahay ugu nooleeyay caafimaad ugu siiyay markaan imaatinkayga ugu horeeyay garoonka diyaarada markaan ka soo degtay markii aan meeshaas laga qaabilay dhar waxaan sitay dharkii Soomaaliya oo samarka aan watay ma wadan dhar kulay qabowga ma wadan qabowbana dhacay waqtigaas ciise cabdikariin oo markaasi ahaa soo galooti ayaa loo kaxeeyay xero kaam ah oo loogu talagalay in lagu hayo dadka qaxootiga ee Norway yimaada ka hor inta aan dib u dejinta loo sameyn kaamay igeeyeen oo magaalada dhinacaas ugu yaala oo godfiga la yiraahdo markaan meesha tagay aniga wiiligay dad cadaana lama kulmin oo ma arkin oo lama sheekaysan wiiliga gabar su'eg oo meel fadhi weyn fadhiyaan la keen marka waxaan maqli jiray Yurub dadka oo yimaadaan waxa loo dhiibaa family loo dhiibaa marka waxaan moodaa family in la keenaba markaas wax kasta ay yeelay finjeeradii wax kasta meesha u yeelay marka waana soo ekaay oo isu kala ekaay laba qof oo su'eg ay ilaahay markaas laakiin ma soo ekaay marka hadda fiiriyo markaas waxaan waxaan u bilaabay family oo ma tiradinka maashan maxay tahay family ama meel maxay tahay markaas ay waa meel kaam oo hadda waxa ay sheegdad lagu soo dhaweeyay anaga meeshan ka shaqeynaa sidoo kale waxaan weydiiyay in xilligaasi uu tagay wadanka Norway ay soo dhaweeyeen amaba ay jirtay nacayb loo qabay dadka soo galootiga ah ayuu ii sheegay mar kale xaqiiqatan waxa Norway waana soo dhaweeyeen waqtigaas dagaal xoog la Soomaaliya ka socday waxa ka soo cararnay dadkuna waa yaraayo aad loo jeclay markaas dadka qaxootiga imaha wadankan dadka joogan ma badnayn dadka ajnabiga waa lagu diibayay waxa waay dad joogo wax madowba way yaraayeen xilligaas uu yimid Norway gaar ahaan magaalada Bergen waxa uu ii sheegay inuu arkay oo kaliya wax ka yar 15 qofood oo Soomaali ah oo barigaasi ku noolayd magaalada Bergen Soomaalidu markaas waxay ahaayeen 14 qofood ay ahaayeen oo saddex ay family tahay inta kale la iskaabulada marka aan ku soo biiraba marka dadkaas marka Bergen markaas joogay meel isugu yimaado sheekaysto isjecel oo Soomaaliya marka ka timaado xiisayaha inay ku wareystaan ay ahaayeen marka ma sha Allah dadkaas hadda waxay gaarsan yihiin waqtigan la joogo qiyaastii 2000 oo qofood ay dhan marka xataa ilmooda lagu daro oo dadku way bateen ma sha Allah Bile Maxamed Cabdi SDN TV Bergen Norway